Banoda Media waxay idin soo bandhigaysaa sheekooyin gaagaaban oo cajiib ah oo ka kala dhaca dunida daafadaheeda. Haddaad tahay member nagu xiran ee hore, waad ku mahadsan tahay dhegaysidka sheekadan aad dhegaysanaysid. Haddii kale oo aad tahay member cusub, fadlan nagu soo biir. qiso nin iyo xaaskiisa oo ka dhacday magaalada Qaahire ee dalka Masar. ninkan iyo naagtiisa ee deganaa magaalada Qaahira dalka Masar ayaa muddo dheer isqabay, wax caruurana ma lahayn. wayna doonayeen caruurta inay yeeshaan. waxaa dhacday, dhakhaatiir badan bay u tageen, baaris badan bay isku sameeyeen. waxaa caddaatay inuu ninka yahay madhalays, laakiin xaaskiisu ay tahay qof caadiya oo waxba aan qabin. ninkii wuu iska quustay. muddo kadib ninkii safar shaqo ayuu u baxay. intuu safarkaa ku maqnaa ninkii ayaa naagtiisii waxay samaysay raadis ay raadinayso bal arrinkan dhalmada wax ka caawiya. waxaa loo tilmaamay wadaad magaalada dhinac ka degan. wadaadkii bay u tagtay, markaasay u sheegtay inay muddo dheer xaas ahayd, wax caruurana aysan lahayn, inay doonayso inuu ka caawiyo arrinkaas. wadaadkii wuxuu ku yidhi, waayahaye, iminka iska tagoo ii kaale markaad ka qubaysatid caadada. maalmo kadib markay ka qubaysatay caadadii ayay u tagtay wadaadkii. wadaadkii wuxuu ku yidhi naagtii, ordo qolkaa gal, qol madow oo qabow ayuu yidhi, intaad gashid dhex fadhiiso, waxaa kuu imaan doonta ruuxaantaasoo kuu galmoon doonta. sidii bay yeeshay, maqsinkii dhexdiisii bay fadhiisatay. weliba dhowr cisho dambena waa ku soo noqnoqotay. kadib waxay isku aragtay xaaladdeeda caafimaad wax isbeddela. cisbitaalkii bay tagtay, waa la baaray, waxaa loo caddeeyey inay leedahay uur. arrinkaasitana aad iyo aad ayay ugu faraxday. ninkii qabay naagta ayaa safarkii ka soo noqday. maalintii guriga uu yimid, shandadihiibaa isagoo dhigan ayaa naagtii oo faraxsan waxay ku tiri, war farxad leh baan kuu hayaa. markaasuu weydiiye yidhi, oo muxuu ahaa warkaasi farxadda leh? markaasay bilowday inay uga sheekayso intuu maqnaa wixii ay samaysay. dadkii ay wareysatay, wadaadkii loo tilmaamay, maqsinkii ay fadhiisatay, ruuxaantii u timid oo u galmootay, uurkii ay yeelatay, iyo hubsashadii ay soo hubsatay inuu uurka leedahay, cisbitaalka ka soo hubsatay. ninkiibaa intuu naagtii hadalkeedii la yaabay oo uu ku dheegagay, ayuu markii dambe wuxuu ku yidhi, naa wadaadkaa arrinka shaqada wacan noo qabtay maad isoo tusi iminka. markaasay tiri, haayana keen. naagtii waxay soo kaxaysay ninkeedii, waxay u yimaadeen wadaadkii. guriga wadaadkii markay soo galeen, ninkii oo juuq iyo jaaq aan oran oo wadaadkii la hadlin ayuunbaa mindi u qarsooneed intuu la soo baxay wadaadkii ku dilay.
markaasuu kula soo jeestay naagtiisii iyadana bartii buu ku dilay labadoodiioo meyd ah oo dhiigga ka daadanayaan midadana dhiig leedahay isagana gacmihiisa dhiig leeyihiin ayuu maqsinkii intuu ka soo baxay wuxuu soo aaday boolice stationkii markaasuu booliiskii wuxuu u sheegay falkii uu soo sameeyey booliiskii baa intay yaabeen yidhaahdee bal kaalayoona tusi dadkaad soo dishay meydkoodii wuu soo kaxeeyey wuxuu keenay gurigii wuxuu dul keenay ninkii wadaadka ahaa iyo naagtii oo meyd ah oo meesha yaalla booliiskii markay hubsadeen dib bay usoo noqdeen ninkii xabsiga ay dhigeen waxay bilaabeen inay sheekadii baaris ku sameeyaan baaristii la dheeraatay laakiin aakhirkii waxay soo ogaadeen ninkani inuu madhalays ahaa iyo naagtan inay wadaadkan dhowr cisho isaga soo daba noqonaysay inay uur yeelatay halkaas ay ku ogaadeen dembiga intiisa badan inay qaadatay naagta sabab u ahayd ninkii maxkamadda baa la geeyey waxaa lagu xukumay 5 sano oo xariga iyo shaqo culus maanta sheekadii intaas ayay noogu eg tahay